من قلبي وسعاد كلكم عشيق هو نغم قذا كما من قلبي وسعاد كلكم عشيق هو نغم قذا كيورا نغم والقرداس يبغى يمرنا نغو والقرداس يبغى قبلني يا ضمبا يسحك تشوغو لفك يا سيدي هيا كوكو قلبي نيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد marka hore magacaygu waa cali warsame waxaana xubin golaha dhexe xisbiga wadaniga halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland gudaha iyo dibadda marka xigta gaar ahaan waxaan salaamayaa taageerayaasha iyo madaxda xisbiga wadani haddaan ra'yigayga ka dhiibto bay iyo hoogii ka dhacay maanta golaha baarlamaanka waxa weeye waa dhacdaan la filaynin أنا كل كنت سنسعك سوماليلاند dhibteedana way naasnaasin doonaan waayo 7 kiiloomitir oo badda Soomaaliland ayaa faasaxay maanta hal su'aal aan weydiinayaa shacabka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka sharci miyaa in qalin waraaq lagu soo qoray la keeno baarlamaanka oo la yiraahdo saxiix mise haddii kootraad ay dawladdu gasho cid kastaba hala gashay waxaa laga rabaa kootraadkii original in la keeno baarlamaanka hortiisa oo la qaybiyo oo ugu yaraan ay ka doodaan 14 cisho ama 15 cisho waxa weeye boobkan oo isu soo bahaystay guurtii iyo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo waxa ay isu soo bahaysteen ay ka fuliyeen maanta golihii baarlamaanka waxa weeye haddii aanay shacabka Soomaaliland ka baraarugin oo u hiilin iyagu baarlamaankooda waxa dhici doona maalin aanay u hiilin karayn maalin aanay waxba ka qaban karayn maalin aanay waxba yeeli karayn imaaraadka fadlan waxaan leenahay imaaraadka dawladda imaaraadka waxaan leenahay uma baahnin saldhig imaaraadku leeyahay 25 sanadood baan halkaa fadhinay nin imaaraadki nooma iman maalinkan maanta markii imala dagaalameen inaan lagu dagaalkooda ka qayb noqono oo dagaalkaana geliyaan uma baahnin halaga feejignaado waan salaam ya dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan u baxay oo runtii maanta waxa weeye maalin madow bay u tahay Soomaaliland sababtoo go'aan aynaan garanayn meeshu ka yimi iyo ujeedadiisa baa lagu soo dhex tuuray Soomaaliland arrinka labaad ee rabaa inaan ka hadlana waxa weeye waxaanay heshiiskan hadduu yahay heshiis ay Soomaaliland soo gashay anigu u malaalmaayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya inay saxaxday oo laba xasan sheekh saxaxay maxaa heshiiskaas loo soo hordhigi waayay golayaasha labada gole ama media maxaa lagu qaybin waayo loo sheegi waayo heshiiskii ay Soomaaliland saxaxday nuxurkiisu wuxuu ku qotomaa caynkaas waa sidaas heshiiskiisu waa qodobadaas lagu heshiiyay Soomaaliland baana saxaxday maxaa loo oran waayay anigu waxaan arkaa arrin dadka laga qarinayo oo looga qarinayo in heshiiskaas yahay heshiis Soomaalidu ay saxaxday dawladda Soomaaliya ay saxaxday oo ujeedadiisu tahay in dadka lagu marin habaabinayo baan anigu aaminsanahay oo xasan sheekh iyo wasiiradii istaba socday ee tagay mar hadii ay aaday inay saxaxaan ayna ku saxaxaan magaca Soomaaliya in lagu saxaxay sababtaas baa looga qarinayaa dadka waadna salaamantihiin
waxaana shacabka u sheegayaa shacab yahow maalinba arrin aan jirin iyo waxaan jirin halaydku maran habaabiyo waxaad ogaataan meeshan iminka in loo jeedo in waddamada khaliijku ay doonayaan in goobteenna loo soo wareejinayo xaalad dagaal taasna waxa fiican inaynu ka gilgilanno oo aynu ka dagaalanno wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد هذا صادق سلم الدال waxaan joogaa London runtii waxaan jecelahay maanta inaan fikirteeda ka dhiibto arrinta maaragtay ugubka ee ka dhacday maanta golaha baarlamaanka runtii waxa weeyaan Soomaaliland waxay gashay taariikh madow runtii waxa maanta dhacay waxa weeyaan waxay muxuu ahaa dhabarjab ku tahay wixii aan doonaynay oo ah in Soomaaliland maanta la ictiraafo ictiraafkii waxa weeyaan maanta wuu wiiqmay runtiina waxa weeyaan sideedaba muxuu ahaa marka heshiis la galayo waxa weeyaan heshiis waxa gala laba dawlad oo ictiraafsan oo de muxuu ahaa safaarada leh oo maartay de sharciga muxuu ahaa adduunka u yaalana ma waxay labada dawladood muxuu ahaa heshiis wada gali karaan caalamkana uu maartay protection ka helaya markay de laba dawlad oo jira ay muxuu ahaa heshiis wada galaan marka laakiin maanta waxa dhacday xisbul haakimka kulmiye wuxuu leeyahay maanta waraaqo nuxur kooban ku qornaayeen oo 15 qodob ahaa oo markaa ay ka hadlayaan muxuu ahaa leeyihiin heshiis weeyaan oo markaa de aan la galnay qolo laakiin meesha waxa ka muuqata in ahayd waraaqayga soo qorteen oo aan heshiis ku jirin oo mid dhinac kale ku kooban ahaa marka waxa weeye runtii waxa weeye wax aad looga xumaado weeyaan teeda kale waxa weeyaan wadankan la jaarka ah Yemen waxa weeye xiriir badan baa naga dhaxeeya oo taariikhiya dad badan oo reer Soomaaliland ayaa degan Yemen degan runtii waxa weeye wadan naga dheer maaha dadka walaala ahayn jaarka nahay isku dilaya meesha isku dilaya xuutiyiinta iyo sunniyiinta waxa weeye inaan de nabadooda ka shaqeynay san isugu soo dhaweyneen mooyaan muxuu ah dhinac raacno oo maaragtay halkan base ka sameeyno oo laga weeraro base-ka laga weeraro qolo kamid ah qoladinka waxa weeye anigu way la qabtan tahay runtii waxa weeye hadii maanta ay muxuu ah nimanka jabhadda ee la dagaalamaya dawladda Yemen maanta soo jawaabaan madaafiic ku soo ridaan oo way imanaysaa waxa weeye waxa kaga hortagno ma haysano wax naga difaacaya ma haysano waxa weeye dhibka dadka dhibaato u keenaysaa dekada yaray imankaba sida looga yahay 20 years kan ugu qaateen aan dhisno waxa weeye way burburaysaa oo dhaqaale ahaan burburaysaa waqtiga maanta xaadirkana waxa taagan sicir badan baa taagan iyadoo sicir barka soo taagan yahay abaarana jiraan hadii maanta aan dagaal sokeeyo aan qusayn aan dhex galan waxa weeye dhibaato inta ka badan bay noo keenaysaa marka anigu waxa oranayaa de dadku indhooda u macalina laakiin se waxaan muxuu ahaa dadka u sheegay oo kaliya inay maartay meel kasta ay joogaan shacabka reer Soomaaliland ay muxuu mudaharaad salmiya ay muxuu ahaa si dhaqsaha badan maartay ku muujinayaan shucuurtooda inay maartay ay si dhaqsaha badan u sameeyaan oo ay tusaan waxaan ay dawladdu sameysay macmalka inaan muxuu ahaa heshiis ahayn raarina ka ahayn danta Soomaaliland ay muxuu dan ugu jirin marka waxa weeye waxaan oran lahaa arrinta laga digtoonaado laga hortago waxa weeyaan wax kala ma harin option kala ma harin aan ahayn madaxweynuhu maanta dib uga fiirsada arrinta ama shacabka oo muujiya shacabka Soomaaliland oo muujiya inay muxuu ahaa raali ka ahayn waxa ay marka la soo wado tan ugu muujita Soomaaliland salaamu calaykum bismillaah aniga waa Mukhtaar Maxamuud Farax waxaan ka hadlayaa raygayga markaan cabiro arrinta ka dhacday maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland fikirkayga markaan ka hadlo waxaan u arkaa arrin afduub golaha in la afduubay arrintaasi arrin aan golahana ku wacnayn shacabka Soomaalilandna ku wacnayn oo shacabka caqligooda la caayay dadka golaha matala ee golahina la afduubay oo golo kale la dhaxgeeyay waxaan arkay maalin dhawito wasiirka madaxtooyada oo le uma raglayn inta la weydiiyo la yiri mas'uul miyaad ka tahay waxa saldhiga naga soo gaadha laga sameeynayo berbera mas'uul miyaad ka tahay le uma raglayn dameerku haduu dhargo wuu danaaniya wuxuu hadlayay si qof mas'uul uma hadlayn ninka la yiraahdo ina yaro baasha la yiraahdo maanta arkayo shir jaraa'id qabanaya oo leh waxaan ahay waa xaq waxaan dhacay waxaan u aragnaa dagaal iyo colaad shay base military ba meesha laga sameeynaya military-gana dad aqoon u leh dadkani maaha
سعد علي شرو وزير كريمة دبدي ودي الدين وأنا وزير شقة قرناية شقة دي سقرناية لكن كون وحنا وركا إن قار شقة دودي قرناية هاي دل كنا وحنا وركا وحنا إن تهاي مسؤولية درو الدولة دي محمد حاج إبراهيم عقال محمد حاج إبراهيم عقال وحو يجري دد يهو شعبكي waxaatihiin su'aalihiisi waxa kamid ahaa dad iyo shacabkii waxaatihiin dad wixii la doonaba laga yeeli karo waa dad la iibin kara baatihiin laakiin maanta aanu idin iibin maayo laakiin waxa idin iibin doona kuwa iga dambeeya aniga marka silaayana maanta waxaan arkaa inuu dalka iibiyay wax meel ka dhaca ay tahay waxaasi dadkana anagu maanu dooran ee silaayan dooran waxaan u arkaa wax meel ka dhaca in dadka lagu gafayo sharciga laga baydhayo aan loo hogaansamayn waxaasina sii socon maayaan hadii laga bayr waayo oo sharciga la jiiro ninku haduu isha farti ka geliyo maalin walba marka sharciga ilaalsadna takalaad farti ka gelinaysa way isla dumi waxaan leenahay sharciga ha loo noqdo oo ha laga joojiyo bayskan military dawladda Iran oo dawlad weyna ayaa xoutiyiinta nimanka la yiraahdo dabada kan support garaysa halkan waxa leeyahay saldhigyo waxaan uga dhigaynaa Imaaraadka waxaan u arkaa arrimahaas inaynan arrimo cadow ku ah dalka iyo dhibaato iyo colaad shisheeye u keenaysa baarlamaankuna caqligii muu shaqaysay waa muushquutayaal iyaga loogama baran waa wax looga bartay waxaanay maanta sameeyeen inta ka soo horjeeday iyo xildhibaanada dagaalamay kuwaasina waa muwaadiniin cirrana wuxuu muujiyay leadershipni muujiyay maanta oo waajibkiisa uu ka maray wuuna ka bareeray muusana wuu isnabaya wuxuu isleeyahay madaxweynenimo ku helaysa madaxweynenimo ku helay sinaad snabto laakiin sharax baa ka hadal waxa wadanka ka dhacaya ee dalka iyo dadkaba dhibaatada u soo jeedaya ee colaad u soo jeedaya waa mahadsantiin dhamaantiin kumaadi man qalbiyo saxaa كلكم عشاء هاو نقوم كذا كما دمن قلبي يسعى كلكم عشاء هاو نقوم كذا كيورا نقوم والقرداس شباب نورنا نقول والقرداس شباب قبلني يا ضمبا يسحك تشوفو لفك يا سيدي هيا كوكو قلبي نيا